si aad u noqotid hogaamiye guuleysta shardi ma aha inaad dadka ugu caqli iyo cilmi badan tahay ee waa sidaad caqligaaga uga shaqaysiisid waxaase loo baahan yahay in caqligaagu yahay mid awoodi kara hanashada mas'uuliyadda loo xil saaray iyo inuu diyaar u yahay culayska hogaaminta haddaad u fiirsatid dadka ku caanbaxay taariikhda waxaad arkaysaa inay u badan yihiin aqoon-yahanada u go-ay cilmiyada kala duwan maxaa yeelay caqliga haddaan laga shaqaysiinin halkiisii ayaa uu ku abaadayaa markaa waa in laga shaqaysiiyo caqliga iyo maskaxdaba si looga faa'iidaysto jagooyinka sare ee hay-adaha iyo shirkadaha waxaa looga baahan yahay dad karti leh oo u qalma inay jagooyinka qabtaan nin agaasimo guud ka ahaa shirkad ganacsi oo Maraykanka ah ayaa tilmaamay howlaha maamulka waxaana uu yidhi hogaamiyaha fuliyaha ahi waa inuu karti u leeyahay waxbaridda dadka kale waa inuu awoodi karo inuu shaqaalihiisa u qeexo jid cad oo uu ku muujiyo dhammaan shaqada hay-adda iyo siyaasadeeda iyo kaalinta ay kaga jiraan arrimaha la fulinayo taasina waxay suuroobi kartaa in isaga naftiisu aqoon dheer u yeelato arrimo badan oo ka baxsan shaqadiisa iyo inuu aada u yaqaano shaqaalaha uu madaxda u yahay iyo heerka ay kala joogaan xagga aqoonta kartida waxa uu mid kasta u hanqaltaagayo waxyaalaha ay hibada u leeyihiin qaarkood iyo qof kasta waxa uu ku fiican yahay si gacan loogu siiyo waxay higsanayaan hay-adduna uga faa'iidaysato hogaamiyaha ninkarameedka ahi waa midka ka shaqeeya inuu ka dhigo shaqaalihiisa koox midaysan oo iskaashi una wada shaqaysa si xurmaysan sida lagu gaari karo guushuna waa in si cadaalad ah loogu simo fursadaha tababarada iyo aqoon kororsiga oon laga xulan kuwa qaraabada iyo saaxiibada ah oo keli ah haddii aad qaarkood u fidiso kaalmo aanay mutaysan oo loogu qaraabo kiilay waxaa kacaya kuwa asaagood ah oo uurxumo ku abuuraysa waxaanay tirsanayaan dulmi iyo cadaalad darro sidaa awgeed hogaamiyaha doonaya inuu guul dhaliyaa waxaa waajib ku ah inuu dhexdhexaad u ahaado shaqaalihiisa fursadaha tababarada iyo dalacaadana uu u simo waa inuu u dhug lahaadaa in eexda iyo nin jeclaysiga shaqaaluhu ay qalbi jebinayaan nin madax ka ahaa shirkad ku taalay Texas oo ka mid ah dalka Maraykanka ayaa u baahday nin kaaliya uga noqda dhowr gobol waxaa isku waday jagadaas nin maamule ka ahaa gobol kale waxaase loo magacaabay nin kale oon la filayn markaas si loo caddeeyo sababta ninka kale uu u mutaysay isaguna uu ku waayay wuxuu u yeedhay madaxii shirkaddu ninkii maamulaha ahaa waxaana uu ku yidhi waan ka warqabaa inaad cadaalad darro tirsanayso markii ninka kale loo magacaabay jagadii aad filaysay waxaan kula socodsiinayaa in looga baahnaa jagadaa nin la macaamiloon kara dad kala duwan sida ganacsatada agaasimayaasha waxkadidda degmooyinka iyo gobollada waxaana shardi ahaa inuu aqoon fiican u leeyahay waxkadidda isla markaana waa inuu karti u leeyahay layliga iyo barbaarinta dadka kale oo uu u soo saari karo hay-adda dad waxtar ah oo horumariya si aanay hay-adaha kale noo dhaafin adigu waad ku fiican tahay shaqadaada laakiin markii lagu noqday heshiisyadii gadidda ee aad fulisay intooda badan adigaa sameeyey inta yar ee soo hadhayna waxaa sameeyey 3 nin oo raggaagii aad ka dooratay shaqaalahaaga intii kalena waad gacan bidixaysay waxtarkoodiina hoos buu u dhacay markaa haddii aad damacsan tahay dalacaad u barbaari shaqaalahaaga howlaha kala duwan waxaa nagu waajib ah inaan jagooyinka muhiimka ah u dhiibno dadka kartida iyo waxqabadka badan si loo soo hooyo guul wax ku ool ah adigu hal qof baad tahay oo wax walba ma qaban kartid markaa waa inaad diyaarisid dadkii wax kula qaban lahaa waa intaas kafka uu sameeyey maamulihii ee uu ku waayay dalacaadii wuxuu khayr moodayay baa khasaare u soo jiiday maxaa yeelay waxa isku dayayay inuu shaqadiisa iyo shaqada dadka kaleba kaliya uu qabto waxa uu qaatay haddii uu isagu ku eekaado howlgelinta shaqaalaha uu madaxda u yahay iyo tababarkooda si ay shaqada toos ugu fuliyaan inay isaga liidnimo ku tahay waxaase loo baahnaa inuu xog ogaado in shaqada madaxdu tahay howlgelinta shaqaalaha isku duwida shaqada iyo kormeeridda habsami u socodka shaqada haddiise maamuluhu qabto shaqadii dadku uu madaxda u ahaa waxaa baylahaysa shaqadiisii waxaa lagu matelaa ninka caynkaas ah geed weyn oo hoos ballaaran ama had ballaaran leh laakiin aan ogolayn in geedo kale hoostiisa ka soo baxaan hogaamiyaha guusha dhaliya waa inuu u hanqal taago jagooyinka sare jagadiisana waa inuu u diyaariyaa una barbaariyaa dadka kale ee ka hoos shaqeeya haddiise uu isku gudbo oo uu hore u socon waayo way jeeri doonaan oo iyaga ayaa ka hor socon doona hogaamiyaha guraacana meeshiisa ayay uga tegi doonaan
waxaa jira nin ka shaqaynaya mujallad muddo 15 sano ah kana qabtay jagooyin kala duwan ilaa uu ka noqdo madaxa mujallada oo dhan. laakiin waxaa dhacday inuu shaqadii mujallada oo dhan isaga oo kaliya uu qaban jiray, dadkii la shaqaynayayna wax xil ah uma uu dhiibin. waxay noqotay mujallad qof qura uu ka muuqdo. waxaa dhacday in maalin uu u yeedhay gudoomiyihii shirkadda iska lahayd mujallada, waxaana uu u sheegay in shirkaddu soo saarayso wargeys cusub, isagana madax looga dhigi doono. markaasuu argagaxay oo uu yidhi anigu ma qaban karo wargeys cusub. wuxuu ku taliyey in dibadda maamule looga doono. wuxuu ugu jawaabay gudoomiyihii, maxaad shaqaalahaaga qaar ugu tababari weyday? waxaana uu ku yidhi kama soo bixi karaan. markaasuu ku yidhi gudoomiyihii, dhagayso, waxaa jira 10 sano kaa hoos shaqaynayay, haddaad intaa wax bari weydayna ma hadda ayaad wax bari kartaa? haddii aanay iyagu wax baran karayn, waxaa waajib kugu ahaa inaad shaqada ka saartid. sida dhabta ah adiga hortaagnaa oo cagta hoostiisa geliyey oo horukac u diidanaa. waxaa waajib kugu ahaa in aad abuurtid dadka hawsha kula wada. haddana waxay ila tahay in jagadaada loo dhiibo nin abuuri kara maamulayaal madax ka noqda qaybaha kala duwan ee mujallada. sida ugu wanaagsan ee aad ku hanan kartid xurmada shaqaalaha aad madaxda u tahay waa inaad shaqadaada ka adag tahay una qalantid booska aad joogtid. hogaamiyaha fuliyaha ah ee guulaystay waa inuu u hanqal taago horukac iyo dalacaad. waa inuu aada ula socdo ujeedada iyo siyaasadda ay ku shaqaynayso hay-adda ama shirkadda uu u shaqeeyaa. haddii aad doonto dalacaad, aqoon u yeelo intii ku suurtoobi karta shaqada hay-adda, hana ka joogsan aqoon kororsiga. aqoonta noocaas ahi waxay kugu abuuraysaa isku kalsoonaan. markaad dadka la dhaqmaysidna waxaa kuu suroobi kara inaad ka jawaabtid su-aalaha lagu soo jeediyo si dhaqso ah. haddii ay kaa hor timaado dhibaatooyin, waxaad heli kartaa sidaad u xallin lahayd ama u raadin lahayd jidadka loo maro ee lagu xallin karo. mana suuroobi karto inaad moosto mas-uuliyadda maamulka sare markay kula soo gudboonaato inaad qaadatid tallaabooyin ama go-aano aadan jeclayn. maamulaha daciifka ah waxa uu kusoo jiitaa shaqaalihiisa eedaynta madaxda sare. wuxuu yidhaahdaa anigu ma jecli in aan arrinkan ku kaco, laakiin waxaa fulinaya amarka madaxda, waana ku qasbanahay inaan sidaa yeelo. haddii aad eedeyso maamulkaaga sare, waxaad daawacaysaa kalsoonaanta shaqaalahaaga oo ay u hayaan hay-adda ay ku xidheen noloshooda iyo aayatiinkooda. marka intay daacad ugu shaqaynayeen hay-adda ay joogaan, nin kasta waxa uu isku shuqlinayaa siduu u raadin lahaa meel kale oo uu u shaqo tago.